wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse waxa uu sidaasi ka sheegay gabagabada kulan si isdaba joog ah muddo ugu socday madaxda wasaaradda kaasi oo lagu falanqeynayay waxyaabaha ka qabsoomay horumarinta adeegga wasaaraddu qaranka u hayso iyo qorshayaasha kor loogu qaadi karo adeeggaasi mustaqbalka dhow arrimahaasi la xidhiidha howlaha wasaaradda iyo dardaarankii uu jeediyay madaxda qeybaha kala duwan wasiirku marka laga yimaado waxa wasiirka wasaaradda warfaafinta uu ka hadlay hawsha qaran ee waqti xaadirkan dalku galay ee diiwaangelinta madaniga ah iyo doorka saxaafadda madaxa bannaan iyo tadawliga labadaba waa ku mahadsantihiin ka qayb qaadashada ay ka qayb qaadateen waxaan doonayaa in laba arrin oo kale shirkan raaciyo mid waa fariin aan saxaafadda dawladda iyo saxaafadda madaxa bannaanba farayo waa dardaaran waa arrin muhiim oo qaranka aynu la wadaagayno waa ogtihiin dalkeenu waxa uu ka socota hawl culus oo muhiimad ballaaran inoo leh hawshaasi waa diiwaangelinta muwaadinka diiwaangelinta muwaadinku marka aad aqoon ahaan maadaama aad suxufi baa tahay inaad fahamsanaato ay tahay waxa qiimaha dalka ay ugu fadhido iyo muhiimadda ay leedahay iyo muhiimadda ay muwaadinka u leedahay marka aad fahamsan tahay waa dareemi doontaa baahida ay ummaddu u qabto inaad gacan ka geysato waa dareemaysaa baahida ay ummaddu u qabto inaad ku wacyigeliso adigoon wax ku doonaynin ee ka qayb qaadanaya dhismaha waddankaaga iyo xaqa waddanku kugu leeyahay xaqa ay mas-uuliyadda aada ummadda u sida ee saxufinimadu kugu leedahay oo ah inaad dadka u gaadhsiiso wixii dan u ah shacbiga wixii dan u ah dadka wixii dan u ah nolosha bini aadmiga Somaliland waxaan ka xumahay marmar way dhacdaa qaar aan aada u fikirin ama ilduufay ama khaladku ka dhaco oo iyagu aad arkaysa inay dacaadeynayaan diiwaangelinta madaniga xaashaa kalla wax la dacaadeeyo maaha uma qalanto muwaadinkaaga oo la register garaynayo oo kaarkii muwaadinnimada qaadanaya haddaanad ahayn qof Somalilanda tashuush kaga jiro wax la dacaadeeyo maaha waa wax lagu faano waa wax la dhiirigeliyo waa wax gacan laga geysto suxufiga dawladda u shaqeeya iyo suxufiga madaxa bannaanba waxaan ugu yeedhayaa tani ma aha tii aynu ku qaybsanayn tani waa tii aynu ku midaysnayn waana Somaliland dhismaheeda mudane Cukuse waxa uu geesta kale jawaab ka bixiyay weeraha faragelinta cuskan ee xiliyadan dambe Somaliland kaga imanayay dhinaca maamulka Muqdisho maalmahana way dhacaysay oo waa maqlayseen arrin kale Soomaaliya oo ka hadlaysa arrimaha Somaliland ama joogaan UN-ka ama meel kale ha ka hadlaane iyagoo faragelin iyo wax ka sameynaya Soomaaliya waxaan maqlaynay iyadoo la leeyahay madaxweynahooda Xasan Sheekh wuxuu yidhi Somaliland waanu heshiinay Somaliland waa qaran madax bannaan 1991 dib ula soo noqday qarannimadiisii 26 Juun 1960 uu ka qaatay mustacmaradda Ingiriiska ayuu dib wuxuu ula soo noqday markii uu Soomaali kalgacal kula midoobay markii Somaliland ay dheef iyo dhib mooyaane dheef ka weyday markii ay dhaqan wanaagsan ka weyday markii ay Somaliland wixii ay midnimada u gashay ka weyday waxa dhacday inay dadka Somaliland go'aansadeen inay 1991 madax bannaanidooda la soo noqdaan taasi waa abada laakiin aan wadamada jaarka nabad kula noolaano waxay ka mid tahay mabaadi'deeda Soomaaliyana waa ka mid wadahadallada inoo socdayna ujeedadoodu waxay ahayd oo kaliya in wixii inaga dhaxayn jiray aynu ku kala baxno oo aynu noqono laba wadan oo Soomaali wadaaga jaara oo darisa laba dowladood oo is-ixtiraamo kala ah oo sida Djibouti Ethiopia Soomaaliya Kenya geeska Afrika ku wada nool ujeedadan u soconay waa intaa heshiisna ma dhicin ilaa imika
laakiin wadahadalladu way noo socdeen markii u dambeysay dhowr goor turkiga la isugu tegay qaar dambana waa loo balansanaa inta ka horeysa Soomaaliya madaxdeeda waxa loogu yeedhaynaa aan is ixtiraamno nabadda wada ilaashano danaha aynu wadaagnay ee ah inay mantaqadu nabad ku noolaato aynu dhimi qoloba dhinaceeda ha ka ilaaliso guda kalena ha ka sheekeynina iyadoo gudihii dalkiinu ay mushkiladii idiin taallo oo ay u baahan tihiin culays in idinku filan waa xambaarsantihiin inay iska rogtaan annaguna waa idinku ducaynaynaa ilaahay idinka gargaaro annagana hana xaasidina ee noo qira inaan nahay dal iyo dad shaqaystay iyo jamhuuriyad jirta wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse waxa uu sidoo kale ka hadlay weeraha deelqaafka ee siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood ku kacaan madaxda Soomaaliland ee muwaadiniinta waxaan ku bogaadinayaa kooda maanta xil haya iyo kaan xil hayninba waxay lahaayeen isu tanaasul waxay lahaayeen wada hadal waxay lahaayeen dhaqan la isku ixtiraamo xilka waxay lahaayeen wax ka weyn oo aynu wada ilaashano oo ah jamhuuriyadda Soomaaliland maalmahan rag waaweyn ayaa hadallo deelqaaf ka dhacaya hadallo aan u qalmin da'dooda ayaa ka dhacaya maxamed xaashi wuxuu ka mid ahaa laba goor buu noqday wasiirka maaliyadda noloshiisa labada goor mari waxay ahayd SNM waxaa xilkaa u dhiibay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo markii labaadna imakay ahayd waxaa xilkaa u dhiibay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo ilaahay baan ku dhaartay ixtiraam buu ku leeyahay markaad intaasoo kaliya joogto ixtiraam buu ku leeyahay marka ay isku da' yihiin ixtiraam buu ku leeyahay markuu wasiir shalay u ahaa ixtiraam buu ku leeyahay markuu muwaadin soo halgamay maxamed xaashi yahayna madaxweynaha dalku ixtiraam buu ku leeyahay markuu muwaadin caadi yahayna madaxweynaha dalku ixtiraam buu ku leeyahay hadalkaasina hadalkiisi ma ahayn waanan ka xunahay inta kalena ummadda waxaan kala dardaarmaynaa waxaase wax lagu sheekaysto maaha madaxweynaheenu ilaahay cimrigiisa ha raajiyo ilaahay caafimaadkiisana ha raajiyo innagana waqti badanoo noloshiisaana wuu inoo soo huray welina maanta wuu inoo hurayaa oo waa ka halkaa fadhiya ee inoo shaqaynaya xagxagashada intaa leegna ma qurux badna waxay noqonaysaa marka dambe isaga laakiin mar walba xagxagashada intaa leeg madaxweynaha ajar u kordhayo ifka ah iyo mid aakhiraba way leedahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu